السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يوالكي مهدي ميعاد فيديوغي ugu dambeysay waxaan kaga hadlay ahayd bootstrap ka oo ka dhigan website-ka marka uu qofku sameynayo waxyaabooyinka u gargaaraya ama waxyaabooyinka u dhib yareynaya inuu website qurux badan siiyo sameeyo marka technology-ga bootstrap la yiraahdo waa technology maanta ahaan aad iyo aad u caan ah oo application kasta oo website iyo application ay ka maqan tahay maanta way yar tahay marka sidaa daraadeed anigu waxaan ku tusay ahayd bootstrap maxay ka dhigan tahay maxaa loo isticmaalaa sidee loo isticmaalaa meel qaarkood waan ku tusay laakiin dadka qaarkood waxay iga soo dalbadeen inaan website aan ku sameeyo bootstrap haddii website aan israado ku samee waxaa dhici karta inay aad iyo aad u dheeraato aniguna videoyaasha dheer baan marka qaarkood iska evitaynaya ama iska yareen ay iska ilaalinayaan yaan isleeyahay inay videoyaashu aad u dheeraadaan maya waxaa dhici karta inaan videoyaal dheer haddaan sameeyo inaan as a education aan website kugu dhiga yaan ka jeclaan lahaa marka laakiin waxaan sameeyay YouTube-ka ayuun baan ku qoray bootstrap tutorial ama create website with bootstrap oo ka dhigan yani website waxaan ku sameynayaa ma lagu sameyn karayaa website maxay bootstrap website ma lagu sameyn karaa de haban ku tusa imika YouTube-ke waxaad arki doontaa maxay videoyaal fara badan oo 2 saacadood iyo in ka badan ba le marka taasoo kale waa daawan kartaa aniguna marka qaarkood bal waxaan isku day inaan ku tilmaami karayo waayo technology kaste oo ka hadlo haddii aan israado video ka samee way igu yar adkaanaysa marka bal waxaan isku day waxyaabo qaarkood inaan ku tilmaamo oon ku yiraahdo technology-ga taasa u wanaagsan bal adiguna si dadaalo YouTube ka sii baad su'aalo qaarkood marka qaarkood la soo weydiiyay waxa kamid ahayd xitaa mobile application-ka ayaan rabaa inaan sameeyo way fiicnaan lahayd maanta dhalinyarteeda aan Soomaaliyeed haddii application-yaasha maxay ahayd mobile-ka la sameyn lahaa application kaasoo oo isku dhex jirta ama ha noqoto Android application ama iPhone application Flutter baa jirta lagu sameyn karayaa maye React Native ayaa ugu caansan oo labadiiba ku sameynaysa hatta Flutter kuna ku marka waxaas oo dhan waa technology magacaantoodii marka bal waxaan isku day walaalahayo inaan marmarka qaarkood magacada idin sheego ad idinkuna isku daydaan bal inaad si raadisaan oo YouTube ka heshaan maanta YouTube kuna si aan bari horeba aan sheegay waa nicmadooyin fara badan baa YouTube ku dhex jirta oo dadku ay inay ka faa'iideystaan ay tahay dhalinyarteenu laakiin ama maanta dadka inta badan way yar tahay cidda YouTube-ka aqoon ka raadisay laakiin maanta ahaan waxyaabooyin aan jaamacad lagu dhigin ayaa YouTube ka helaysaa may koorsiyaal qaaliya wallahi qaaliya oo anigu qaarkood xitaa aan lacag ku bixiyaad ku arkaysaa isaga oo YouTube-ka iska yaala oo bilaasha xataa maalin dhaweyd waxaan arkay koor aan jaamacadda ku dhigan jirnay oo nagu adkaa data structure la yiraahdo ayaan maalin dhaweyd ka arkay isagoo 8 saacadood oo YouTube ku jira marka waxaas oo dhan waa nicmad YouTube ku jirta marka waxaan idin kula talin lahaa intii aad karaysaan inaad idinkuna aad sii raadisaan maanta ahaan inta waanaha iga ahaato inta baan ku soo gabagabeynayaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.